السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمان خيارتك kala duwan ee ku xiran channelka Bilicsan Daily halkan aad kala soo hadlayo waa magaalada Gaalkacyo caaw maxaan idin wadaa barnaamij ku saabsan in keen aan wada socono ama in keen aan wada lugeyno waxaan lug ku dhex mari doonaa magaalada Gaalkacyo waxaana gaari doonaa meelo kala duwan bal aan isla socono hayga harin aan wada lugeyno adiga gurigaaga jooga xafiiskaaga jooga ama goobtaada shaqada ama magaalada waqti ku qaadanayo muuqaalka wuxuu ku sahlayaa inaad iglo dhex lugeyso magaalada Gaalkacyo oo aad muuqaalkeeda ila daawato ina keena marka socodkayga mar dhaw ayuu inoo bilaabanayaa marka aan isla socono hadii Ilaahay yiraahdo barnaamijkeeni oo ila lugay ayaan maxaan soo gaarnay ganacsigan aad u jeedaan waydan ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo iyo meelo kala duwan gobolka Mudug yaa barnaamij kaan qaaday oo ganacsiga waa meel markaasi kheyraadka dalkeena gaar ahaan miraha kala duwan qaab cabitaan ahaan loogu diyaar hadeen noqon leed cambihi hadeen noqon leed limacaanti marka waa ganacsi magaalada ka cusub والله ganacsigan ilaa adii 2000 ilaa adii 2020 ilaa xalaagana bilaa ganacsiga والله ما شاء الله dadku waa ka qudaartaasina sidii afaqadadii iyo babayga iyo batiiqi iyo anamuuskii dadkii tamarta u soo celinaa maal xulbadii hadda waa sameeyna والله الحمد لله meesha adii ganacsiga waa sii wadnaa wali ina sii balaarin waa jecelnahay hadii Ilaahayna insha Allah halkan maxaa caaw ku diyaara wad waxay diyaariyay afaqadi iyo waxay diyaariyay batiiqi iyo anamuus iyo xulbadii iyo si baytarafki iyo wixii kale iyo dhangalowga martii ina soo kordhinana keenna rabnaa بسك موقعنا بسك إذا عد ما كسو ديرتان يوتيوب كسو دينا أنا يقول دربي يوتيوب هاي سودو هدي وحي عدي لهذا هذا لقارو يقول درسون بدي هذا قرشها كان أوكي ميعاد هذا السلام عليكم ولي يوتيوب ما قاعد مركو غورس السلام عليكم marka hore bulshooyinta Soomaaliyeed meel walba ay joogan waa salaamaya marka labaad waxaan arkay walaalkay oo halkan fiidiyoo ku duway waxaan jecleystay inaan camiro inkastoo Soomaalida ay garab istaag isku wanaagsan tahay heestii Soomaalida heesta waxa jira heeso badan heesaha aan calanka Soomaaliyeed heeso badan loo soo qaaday laakiin heesta Soomaaliya loo soo qaaday qarankeeda ayaa waxay tahay idinka isu taamayo idinka isu tooqayo heestaas oo habhadbakiina taagdarane taageero waligiina halkan waxaan u soo fadhiistay inaan walaalkay ku taageero barnaamijka uu wada waana salaamantiin halkaas kaga baxay marka waa maasan tahay waxa tahay nin wadani marka magacaaga noo raacay magacaygu waa Maxamed Ibrahim Cabduqaadir waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Gaalkacyo da'deedina waa 17 sano marka Soomaaliya toos ma noo qaadi oo dhameystiran Soomaaliyey tooso
toosoo isku tiirsada hadba kiina taag darane taageera weligiine. soomaaliya hanoolaa soomaaliya soomaaliya waa mahadsantihiin. okay markaana dhanka gabayada u jeesanaynaa bal haye. runtii waa arrin aad u wanaagsan. runtii markaan arkay walaalkay inuu ka shaqaynayo beeraheena Soomaaliya kheyraadkeena waxa ka soo baxay oo haddana dadkeena ay cabayaan, runtii waa arrin muhiima. dadkeena Soomaali badanaa waxay jecel yihiin waxa laga keeno wadamada kale, waxa sun miya wax kastoo lagu soo daro anaga ma ogin, haddana waan jecelnahay. hadda waxaan rabaa halkan in aan ku qaado gabay oo uu qaaday abwaankeena Allah u naxariistay abwaan Maxamed Gacal Xayow, isagoo ku hadlayo, isagoo dadka ku baraarujinayo beeraha inay fashtaan. wuxuu ku bilaabay ummadii baraarugaadii buunka lagu yeershay madax hadalkii baahidayaday taladii baan dheeday anaan gabay ku booriyey murtidu waa isbarbaridaahe birtii tacabka yaan bada maxaa loola bixi waayey badda khayrka soo degay indhuhu kuma bukaaceen wabiyada butaaca baldoos lagula yaacaahe buriska iyo yaambada dhashaa lagu barbaarshahe dadka booli kama naaxo iyo baad la tuugsadaye bukaan iyo xanuun dawo la'aan kuma bogsoodaane beeraha shalaambood maxaa loogu bixi waaye barkin lagu dhareeriyo urdaadba ku takhaaniine waa baaba iyo hookadii badar la waayaahe barbaartiya waxaa lagu korshaa baaja suuyade waxaa hadalka baaqiisu yahay beeraa la ogaade waxaa hadalka baaqiisu yahay beer ha la ogaaday baasa adag waxaa laga helaa beeyadiyo fooxa biraan jabin waxaa noqon lahay xoog isbiirsadaye hadduu buriyo dherigaagu waa inaad bacleeshaahe hadduu buriyo dherigaagu waa inaad bacleeshaahe ood bisinka u qabataad kaba baqlaysaahe meeshii bugtaa faraha waa lagala beeraaye saalkuma biskoodaan haddaad booga xogatahay buruqley hadday curada ee lagu barwaaqaystay ama baarka wada jiifadaad kala bahaydeenba midaad buubidaan iyo midaad baalka gelidaanba maragii badii laga baxo beriisa maad gaarnay baladaan xijaabka u helnay boose loo jiiday in haddana la buunbuuniyo baarka loo fidiyo eed ballaarno ka timid baaska dhaqankiina beesheedka biyo keenta baad bacad ku hoogtiine ha idin bixiyeen soomaaliyay leedan baran waaye. bas waa mahadsantiin bulshooyinta Soomaaliyeed meel kasta iga daawanaya intaasaana kusoo jaro intaasaa kusoo afmeeraya. aada u mahadsan tahay. runtii gabay qiimo laha noo marisay dhanka wadaniyadana kama marneen waa ku mahad celinayaa. runtii intaa dhiirigelinta oo Soomaali aad u jeedisay runtii wax weyn ayay ku biirinaysaa. marka waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato dhammaanteen hal mar Soomaaliya ha noolaato. saaco kalluunka ma duwan karaa shiilis isaga kaliya adoo ka reebay daraalkeena ma kugu dari karaa maasha Allah. okay halkaana waxaa lagu shiilayaa kalluun meesha magaceedu waxaa la yiraahdaa Somali fish. waaw reecaw duniyada ka shidanta haddana Soomaaliya toosay aan qaadayna haddana meel kale Somali fish soo istaagay
kalluuna halkan lagu shiilayaa kalluunka qiimihiisa meelo ka yimaado ayaan wax ka weydiinaa walaal magacaaga adoo ku bilaabaya Somali fish waxaad ku shiilaysan kalluunka qiimihiisa iyo halku ka yimaado iyo macaamiisha ka waram macaamiisha okay waaye boosaasiya ku yimaada kalluunka adi mid xabadkiina $1 ayuuna malab kaamir soconaysa caawa ku timaadeen malabo kaamir soconaysa caawa ku timaad wax mal duubi kara ma loo golyahay mise waa ka reebaa adiga mise waa caadi adiga laakiin adiga waa laga reebaya haye caawa kaamir lugeynaysa ku soo gashay areadan isbitaalka weyn ku dhow yahay waa dhowr meherood oo xirsan oo kalluunka lagu shiilo sida aad maqlayseen kalluunkan muxuu ka yimaadaa magaalada Boosaaso أولاي وليها كاميرا ما لها هذا وليها كاميرا ما لها هذا شيء يا عاو حندوبا يا فلوجر حندوبا يا مقدر يسا سعد
كاميرا ده كخواتة كورن كاميرا ده ما كخواتة اسكيلالي ugu dambeyn waxaa soo gaaray intaan ku guda jiray barnaamijkayga ila lugay ama gaalkacyo socod igula soo mar nasiib wanaag waxaan wadada mataqaanaa isaga soo warbaxnay inaan saaxiibanahay inaan aad u taageero nin runtii aad wada taqaanaan oo caanka ah Soomaaliya iyo Puntland Babalof sharaf ay tahay anoo barnaamij sameynaa inaan wadada isaga soo dhacno inagoo ballamin reemudugana ma ballamaanay waxa waaye maxaa la jiray reemuduga wada isku arkaan ma ballamaan reemuduga mataqaanaa mana ballamaan ismana waayaan saas ay ahayd marka ku soo dhaw barnaamijkayga ila lugay barnaamijka muxuu ka kooban yahay ila lugay macnaha wax weey kalkacyo macnaha lagu arag oo macnaha yaani kalkacyo macnaha lagu arag miya oo magaalada inta badan dadkii ku xiran waxay igu yaqaanaan vlogs ku saabsan inaan socod sameeyo ama gaari ama lug marka horay waxay daawadeen anigoo markaasi gaari ku kala safray oo soo wax soo geystay beeshka Soomaaliya haddana barnaamijkan caawa magaalada Gaalkacyo lug ku maraayay marka barnaamijkii wadada isaga soo horbaxnay sharaf ay tahay inaan mataqaanaa is aragno marka soo dhaw waa dhawahay inaan ka soo muuqdo Yuusuf Carab runtii nin saxaafadda waqti badan ku jiray dadka Gaalkacyo indhaha oo ah weeye media wuxuu ku soo biiray waqtigii ugu muhiimsanayd oo dadku waxa laga guurayay noloshii TV-ga baa laga guurayay marka waxa loo guurayay social media marka xilligu ku soo aadamay xilligii casriga ah oo social media lagu jiray marka barnaamijkan runtii waa daawanayay barnaamijyada hore aad ma u daawanayay oo waan ku xirnaa marka runtii inaan caawana aan ka maqana mid noqdo oo ka soo muuqdo waxay tahay sharaf runtii Gaalkacyo waa magaalo weyn waaye waa magaalo amni ah waa magaalo runtii waxa weeye waa magaalo shanaad ee ugu weyn dalkeena Soomaaliya waxa ku taala magaalo ku taala Soomaaliya kala badh weeye marka Gaalkacyo ila lugay barnaamijka la keenay waa barnaamij runtii ku cusub magaalada Gaalkacyo waxaan leeyahay waxa weeye waa barnaamij dad badan hadda ay mataqaanay daawanayaan oo ay ku xiran yihiin waxaan leeyahay waxa weeye in aan aniga tirkiyo caawa taagan ka soo muuqdo sharaf ay tahay Yuusuf Carab waxa ku jira dadka runtii roob modelka u ah saxaafadda gobolka Mudug dadka roob modelka u ah Puntland waqti badan galiyay saxaafadda Yuusufow magaalada joogtid waa magaalada Gaalkacyo ah
runtii kalkacyan dad waxa magaalo xadaaradda aad ugu weyn waa magaalo aan xaasil lahayn waa magaalo aan laga aqoon qabiil laga aqoonin waa magaalo runtii ilbaxsan ku baashaale ka dhid waqti ku qaadan ka dhid marka waxaan ku leeyahay waxa weeye yuusufow hore u soco aad iyo aad u mahadsan tahay marar badan waa is arki doonaayo barnaamijyada intaa waa ka ballaaran yihiin marka marar badanna janalkayga waa kusoo laalaaban doontaa maadaama aad tahay shakhsi aad u qalbi wanaagsan oo runtii waxaan malaynayaa 8 sano ka hor goldogob sida sharafta leh ay ugu soo dhaweysay wili ma ilaawin ma runtii anaka dad reer goldogob nahay dadka reer goldogob waa dad runtii ilbaxsan waana dad waxa way xadaaradiina waaye goldogob marka haddaad 7 sano ka hor baan noogu imaatay marka si fiican baan kugu soo dhaweynay adigana runtii magaaladaas waxa ka duubtay fiidiyool fiican baa ka duubtay ilaa haddana way ku jiraan waxaan leeyahay waxa waaye roobka ma kodo insha Allah baan kugu soo dhaweynaa goldogob iyo waliba jawi degan amara rabaa inaad bixiso 100 subscribe ama 104 rajeynaya markii ugu dambeysay inay kordheen waa laga yaabaa marka amar bixi odaga 100 subscribe macquul miya may odaga ma istaahilo 100 subscribe wuxuu noo istaahilaa 1 milyan oo subscribe waxaan leeyahay marka fiidiyogan like comment share intaba yisan taqaana yani dhagdhag ku sii waxaan leeyahay waxa way Yuusuf Carab waa nin weyn ee hal soo dhaweeyay hal gilgilane hal gilgil nacla shaytaanku yaale nacla shaytaanku hal gilgil meesha hal shido aad iyo aad ku mahadcelinaya sidoo kale thanks سادي ورسته halkan insha Allah macna waram روح بان سامع لكن كاميرا ولا ايش ما شاء الله akhyaarta sharafta leh ee nagala socotay Bilcsan Daily intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeennii ila soco ama ila lugeeyo oo aan ku dhex mareen magaalada Galkacyo waxaan ku soo gabagabeeyay Shaafic Supermarket oo halka igu soo dhaweeyay sharaf weyn ay tahay macaamiishoodana waa ka mid ahay sidoo kale dhalinyarada ka shaqeynaysa kulli asxaabteeda waaye waana u mahadcelinayaa inay iga ogolaadaan fiidiyogan quruxda badan inaan ku soo xiro Shaafic Supermarket alf wasalaam waxaan ka codsanayaa waxaan ku jiraa bilowgii ugu horeeyay ama geedigeygii aan ku doonay inaan ku gaaro 100,000 laakiin waxa ka soo horeeya 10,000 ama 1,000 marka intaan 10,000 la gaarin 1,000 ugu horeeyay bal igaarsiya waan ku mahadsantihiin idinka wax ku ahay sharafaan idin hay'ad xigilna idin haya marka barnaamijkeena ama muuqaalkeena halkaas ay noo joogo